السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعواتياش شرفت لا سومال يونيفرس. maanta barnaamijkeena waxa aan ku soo qaadan doonaa xubin cusub oo noqon doonta mid joogto ah waana taariikhda shakhsiyaadka caanka ah ee soo maray caalamka. qofka ugu horeeya aan ku soo qaadan doono barnaamijkeena waxa uu noqon doonaa Steve Jobs, abqarigii lahaa fikradda iyo asaaska shirkadda Apple. balse marka hore waxaan si sharaf leh kaaga codsanaynaa inaad fiidiyoga like saarto sidoo kalena fikirkaaga aad inoogu soo qorto qaybta comments-ka si ay inoogu noqoto dhiirigelin una joogteeno muuqaalada noocan oo kale ah. marka aad maqasho magaca shirkadda Apple waxa maskaxdaada kusoo dhacaya taleefanada iyo kombiyuutarada tayada leh ay soo saarto shirkadaas. shirkadda Apple marka ay soo saarto agab cusub waxa ay dadku u galaan safaf dhaadheer sidii ay mar u heli lahaayeen agabka ay shirkadaas soo saarto, iyadoo mararka qaar ay ku qaadato inay safafkaas ku jiraan muddo maalmo ah. haddaba waa kuma shakhsigii lahaa fikradda asaaska shirkadda Apple? Steve Jobs. Steve Jobs waxa iska dhalay Abdulfataax Al-Jandali oo asal ahaan kasoo jeeda dalka Suuriya iyo Juwan oo ah muwaadinad Amerikaan ah. qoyska Juwan ayaa ku gacan saaray guurka lamaanahan taa oo keentay in ay barbaarinta canugooda yar u xil saaraan Paul iyo Clara. Jobs ayaa kusoo barbaaray Silicon Valley oo dhacda koonfurta gobolka California oo ah goob caan ku ah tiknoolajiyadda, iyadoo ay xarumo ku leeyihiin shirkadaha ugu weyn caalamka ee dhanka tiknoolajiyadda. Jobs marka uu yaraa waxa uu aad u xiisayn jiray barashada tiknoolajiyadda, waxa uuna fursad u helay in uu tababar ku qaato maxadka HP halka oo isku barteen Wozniak oo noqday saaxiibkiisa rumaad, iyagoona wax badan kusoo kordhiyay caalamka tiknoolajiyadda. Jobs marka uu dhameeyay dugsiga sare waxa uu ku biiray Reed College oo ku yaala gobolka Oregon, balse hal semester kadib ayuu iska dhaafay waxbarashada kadib markii ay soo wajaheen duruufo dhaqaale. balse Steve Jobs kuma istaagin halkaas, waxa uu warqad cod shaqo u dirsaday shirkadda Atari oo ahayd shirkaddii ugu horeysay ee soo saarta video gameska, waxa uuna ka noqday soo saare. Steve Jobs ayaa u safray dalka Hindiya isagoona halkaas ku soo qaatay diinta Buudiga. Jobs ayaa noqday mid aanan cunin hilibka maadaama ay xaraan ka tahay dadka haysta diinta Buudiga inay cunaan hilibka. Steve Jobs oo kaashanaya saaxiibkiisa ayaa bilaabay aasaaska shirkadooda yar qayb yar oo ka mid ah gurigooda. 1976 ayayna ahayd bilowga shirkadooda. 1990 ayayna ku guuleysteen inay soo saaraan nidaam cusub ay ku shaqeeyaan kombiyuutarada sida adeegsiga muuska oo ahayd markii ugu horeysay isticmaalo, iyadoona markii hore la isticmaali jiray keyboardka oo kaliya. soo saarka kombiyuutarkooda cusub ee Apple I ayaa ka dhigay shirkadooda yar mid saameyn weyn ku leh suuqa. nasiib wanaag, Jobs iyo saaxiibkiisa ayaa ku guuleystay muddo yar kadib inay soo bandhigaan kombiyuutarkooda labaad ee Apple II. shirkadda Apple ayaa ku guuleysatay in laga gudbo isticmaalka desktopyada, waxa ayna soo saartay kombiyuutarada laptopska. haddaba waa kuwan qaar ka mid ah guulihii ay gaartay shirkadda Apple Music event ayay soo saartay shirkadda 2001. iPhone-kii ugu horeeyay ay shirkadda soo saartay sanadii 2007. sidoo kale shirkadda ayaa soo saartay iPad-kii ugu horeeyay sanadii 2010. Jobs iyo shirkadiisa Apple ayaa markii ugu horeysay adduunyada ku soo kordhiyay isticmaalka touch screen-ka oo ah adeeg kuu fududeynaya inaad si fudud ula tacaamusho kombiyuutarkaaga iyo mobilkaaga. marka laga hadlayo taariikhda Steve Jobs waxaa lagama maarmaan ah in la xuso saaxiibtinimadii dhex martay aasaasaha shirkadda Microsoft Bill Gates iyo aasaasaha shirkadda Apple Steve Jobs. Gates iyo Steve Jobs ayaa kulmay dhammaadkii 70-meeyadii kadib markii ay Apple codsatay in ay isticmaasho barnaamijyada Microsoft. shirkadda Microsoft ayaa xilligaas shaqo wadaag la ahayd shirkadda IBM oo ahayd shirkadda ugu weyn caalamka ee dhanka tiknoolajiyadda. kadib kulan ku dhex maray Seattle oo ahayd goobta uu ku sugan yahay Bill Gates ayay labada shirkadood ku heshiiyeen inay Apple isticmaali karto barnaamijyada Microsoft. Jobs ayaa ka shakiyay saaxiibkiisa Bill Gates in uu ka minguuriyay fikradda graphical interface oo ahayd mid ay Apple kaga duwan tahay shirkadaha kale, waxaana xumaaday xiriirka labada shirkadood. 10 sano kadib 1995 Bill Gates ayaa noqday ninka ugu taajirsan caalamka, iyadoo shirkadda Microsoft ay si toos ah ula wareegtay suuqa tiknoolajiyadda. 1997 shirkadda Apple ayaa ku dhawaatay in ay burburto, balse Bill Gates kaalin muhiim ah ka geystay sidii loo badbaadin lahaa shirkadaas. Steve Jobs iyo Bill Gates ayaa ku heshiiyey in la iska ilaabo khilaafkii ka dhexeeyay labada shirkadood. Microsoft ayaa ugu yabooday dhigada Apple adeegsiga Microsoft Office muddo 5 sannadood ah, halka ay shirkadda Apple ka dhigtay adeegga Internet Explorer
waa midka joogtada ah ee loo isticmaalo internetka kombiyuutarada Mac. Shirkadda Apple iyo heerka ay taagan tahay maanta. Qiimaha Apple ayaa lagu qiimeeyay inay gaarayso 750 bilyan oo lacagta Mareykanka ah, waana shirkadda ugu qaalisan ee caalamka. Apple ayaa faa'iiday 39.5 bilyan oo lacagta Mareykanka ah intii lagu guda jiray sanadii 2014, taa oo u dhiganta qiimaha ay ku iibsan karto shirkadaha Snapchat iyo Pinterest. Shirkadda Apple ayaa iibisay 48 milyan oo telefoon qaybtii hore ee sanadkii 2018. Tirada telefoonadaas ayaa u dhigma guud ahaan shacabka ku nool dalka Spain. 2015 ayay faa'iido ahaan u soo xareysay shirkadda Apple lacag gaaraysa 51.5 bilyan oo lacagta Mareykanka ah, waana lacag ka badan dhaqaalaha dalka Costa Rica. Ugu dambeyn, nolosha khaaska ah ee Steve Jobs ayaa hal cunug ka dhalay saaxiibkiisa Christian, waxa uuna markii hore ku inkiray inuusan dhalin cunugaas, isagoona ku andacoonaya inuu yahay madhaleys. Balse Jobs ayaa markii dambe ogolaaday inuu aabbo u yahay Lisa markii ay jirtay 7 sano. Sanadii 1990, Steve Jobs ayaa la kulmay Lauryn Powell oo ay isguursadeen 1991, waxa ayna u dhashay 3 caruur ah. Mar wax laga weydiiyey sirta ku duugan horumarka shirkadda Apple, ayuu ku jawaabay dadka ka shaqeeya shirkadda Apple in aysan kaliya ahayn programmers, balse ay yihiin artistayaal, abwaano iyo injineero, iyagoo dhinac walba ka eega wax soo saarka shirkadda soona saara agabka tayada leh ee aad u jeedaan. 5 Oktoobar 2011 ayuu geeriyooday Steve Jobs isagoo jira 55 sano kadib in muddo ah uu la tacaalayay kansarka ku dhaca bankariyaaska. 6 isbuuc ka hor geeridiisa ayuu gudbiyey istiqaaladiisa isagoo ka shaqaynaya danta shirkadda kadib markii uu dareemay inuusan waxba kusoo kordhin karin shirkadda Apple. Jobs ayaa lagu tiriyaa mid ka mid ah abqariyaashii ku bedelay nolosha aadanaha fikirkii ay xambaarsanaayeen, waxa uuna baaqi ku sii ahaan doonaa magaciisa jiilalka soo socda. Halkaa ayaanu kusoo gabagabeynaynaa taariikh nololeedka Steve Jobs. Fadlan haddii uu ku qanciyay barnaamijkan, ha ilaabin inaad like saarto muuqaalkan, sidoo kalena fikirkaaga aad qaab commenti aana inoogu soo gudbiso, innagana ay inoo noqoto mid dhiirigelin ah si aan u joogteyno soo saaridda muuqaalada noocan oo kale ah. Fadlan haddii ay booqashadani tahay midii ugu horeysay ee channelkeena Somali Universe, fadlan ha ilaabin inaad subscribe saarto. mahadsanidin.